jacaylka ayaa qof kasta oo uu haleelo waxa uu ka bixiyaa sifo gaara qofka wax jecel ayay mararka qaar dhacdaa in qofkaasi laga raacay ay naftu u dirtay inuu uga waayo erayo u qalma oo uu sifo kaga bixiyo sida uu u jecel yahay cabdirabbi oo ah wiil dhallinyaro ah oo maansooyin ka sameeya dhacdooyinka jacaylka ee dhallinyarada ayaa isagoo jooga dalka Pakistan waxa uu jeclaystay inuu barnaamijkan la wadaago maanso jacayl oo uu ka sameeyey saaxiibkii iyo gabar uu aad u jeclaaday cabdirabbi kusoo dhawow barnaamijka caweyska Washington walaalo ku dhawahay aad iyo aad baan ku salaamayaa dhammaan shaqaalaha VOA iyo Ashuud Pakistan man ku suganahay halkaa baan kala soo xiriiraya marka waxaan jeclaystay inaan la wadaago sheeko aan ka sameeyay qiso waxay ku saabsan tahay arrintan oo jacayl ku saabsan tahay okay laba waxyaabood sheekadu way tahay oo mataqaanaa ay sheegay inay ka duwan tahay habkii horta waa sheeko amaana oo gabar lagu amaanayo waxaan ka sameeyay maadaama anugu aan inta badan dadka maaragtay isha cunta laanahay sidoo kalena aan wareysto dadka arrimaha jacaylka u dhundulala ya dadka bukaamada maaragtay waabad wareysataaba waa la shakaysataa si aad xoog ogaatamiya la shakaysataa ana xoog ogaada hay way marka waxaa jira cashay wiil aan aniga asal aan saaxiibanahay isku dhow ayaa wuxuu la kulmay gabar 3 sano ka hor 2013 marka xilli yar buu la kulmay markuu la kulmay Soomaaliya ku soo arkay markuu ka soo laabtay gabadhiibu aad u jeclaaday meel kala xiriirina ma yaqaan laakiin wuxuu haystaa gabadha magaceedii marka ninkii gabartiibu yiri niyo gabadhaan raba inaan amaano haydan ku yiri iga sheeke maxaad soo aragtay sidee bay ahaydo wuxuu yiri niyo horta jacayl dartiis waxaan ku amaano ma aqaan macnaha haddii aan oran lahaa gabdhihii horeeto waa qalanjo waa dhuuban waa quraysh wax ragiriba horta hore loo yiri magaratay haye marka niyo waxa aan oran karo inaan ku amaano ma jirto marka waxaan ku yiri haye qof kasta dee markuu uu ku cusub yahay arrimaha jacaylka iyo amooraha waxa qofka uu jecel yahay wuxuu yiraahdaa warniyo wax walba rag hore u yiraahdeen maxaan ku amaanaa marka waxaan curiyay horta gabadha magaceeda waxa la yiraahdaa Ikraan magaratay haye marka waxaan yiri warniyo haddaan maansa ka curiyo aan gabadhaada ku iftiiminayo lacalla waxaan ka soo qaadaynaa imagination ana hadii mala awal you know haye macnaha stage uu gabadha gaarsiiyay wuxuu leeyahay adduunkan oo dhan hadiiba uu jiri lahaa example hadii ay jiri lahayd ciidaha ciidul adha iyo ciidul fitri baa jira waxaan oran lahaa ciida saddexaad waa ciidul adha iyo ciidul fitri iyo Ikraan magaratay haye marka wuxuu leeyahay hadiiba adduunkan waxa la soo faano waa nuclear marka haduu jiri lahaa wax nuclear ka weyn oo dadka dhan baabi'inaya waxaan oran lahaa wallahi kaa ma kugu faraya si adduunku ma taqaanaa ay sheeg adigu kugu kala xirnaado marka maantada ku bilaabaya marka gabadha markaad jeclaato waxa weeyaan ay sheegay haddii ayadu qurux badan tahay inteeda ka horta waa loogu daraayo waxa weeyaan inay familkeedu fiican yahay iyo in mataqaana wax walba waa lasoo sii daraya mot ila wax walba hanaysaa wuxuu leeyahay cashay ilaalaha dareenkaay jawharad iftiintaay aqliga iyo maankiyo aragga iyo nuurkaay tilixaadka amartee wehel ii ahaydey ayuub sawirkiileeyey nebi yuusuf aragtida qurux loo igleeyaay awliyada adduunkiyo ifafaala qayrey alla gabar ka yaabtaay suubanaha adeecdaay samays ehel ku fanay wuu ammaanayaa mugti aragta weye waa gartay iska leylka baxda iyo dheeman maar ag yaalaay inta saaran dunidee bilyan lagu asteeyee idilkood haween jira uunkaa qof neefsada yartaan la agdhigaynayo mid kun laga ishaartay macnaha wuxuu leeyahay adigu unbaaba keliga ya adigoo istaahila ku ammaani maaye ayaamaha 7 wuxuu leeyahay haddii isbuucu waa 7 ay maalin ugu soo dari lahaa adaan kugu samayn lahaa adigoo istaahila ku ammaani maaye ayaamaha 7 aadmigu tirsanayaan waa wax uun ku leeyo alla loo dejiyeyo adduunyadu ku socotee hadday maalin iman layd lagu daray isbuucyada adaan kugu samayn lahaa oo Ikraan mar bixin lahaa wuxuu leeyahay sabti markii la gaaray hadii oran lahaa ku leeyahay maalinta jeedad Ikraan mar bixin lahaa waa garta hadday dhacayso marka maasada dhexdeeda maasada waxa la yiraahdaa maalintii ayaantii sideed baa la yiraahdaa magaratay amooraha jacaylkaay ubax daray ka baxay iyo inda doogsigeeyaay aramida qalbiga taal inantii dawaysaay cimilada adduunkan waa ayaan dharaartiyo gudcur aan iftiin jirin shamsada iyo qamarka ayaanta iyo leelkii loo kala asteeyo idka nuurka bixiye wax kaloo iftiinsho aan ahayn shamsiya qamar haddii ay mar iman layd
adaan kugu samiilaa oo ikraam baanu bixin lahaa fahmaysaa qoraxda aysan tahdiidi jiri lahayn waaba adiga idka waxa ku nool baa daa'uuska aragtida qurux loo ishaaraa asna eel ku yaalbaa iilkii godka qoday aan mala asteeye xarulciinta udugtiyo aakhare kuwaa jira ee ehel fardowsaa ama aan adduunyada il bin aadam qaban jirin anshaxiyo wanaagiyo habka uu ilaahayn uma kaaga soocee kuu abuuray keligaa haddii laygu oran lahaa inantaa ku naynaas isimka lama siiyeen oo islaamana bixin la wuxuu leeyahay malaa-awaal macnaha hadduu imaan lahaa qof adduunkan ku cusub oo stranger adaaban kugu samey lahaaba macnaha malaa-awaal ahaan ma garanaysaa waa garta sayniseebu isku bedela marka dadka oo abaarsaday ka ilaaday xaabkoo idilkooda addoomaha afkii labadii yeereen alla tuugga badiyeen haddii roob awood badan seeraha agtoodiyo ka onkoda dhul daaqsi leh ogta hore bariisada xareer alalaclaysiyo biyo dhiga afaafkii dhowr ayaamo dabadood raynta udgoonkii ubaxa iyo laacii qashka uu afkaa yahay alla mahadsanaaye dadku aaran joogaan kol haddii ikaanay wax kaloo adduunyada aadana wax taro oo aan daruuri odhan karo dadku uu ku oonbaxo ka ileeyo baahida haddii ay mar iman layd adaan kugu sameeyaa oo isaan bala bixin lahaa mafahameysaa waxa weeyaan gabadha kala xihan tahay haddii aan awoodaha kari kara naf iibsiga ama aan aqoon karo dadka malaga oofiya ii laguma qaadeen adigaan ku siin lahaa cimrigayga idilkii aad adduunku arkide haddii aan af garan karo unugyada jirkaagana duqow maad is aragteen ikraan kuma haleeleen cimrigayga oo dhan baan ku gadi lahaa buu leeyahay jirkaagana maba duqo haddaaman af garan karo unugyadaada tabartiisu ka hadlay alla weyne dabadii wadaa adduunyada nuclear abuurto inta kale u dhaarto muruq iyo itaaliyo ama taagla bixin iyo awood uu ku faano waxa ay yidhaahdaan lagu yahay addoomo arrin uu ku diidiyo yacay aanan odhan karin putin iyo obamiyo cameron afkiisiyo kuwan elisabadiyo faransiiska amar kale hubka uu adeegsado inta kalena haystaan aragtida dhankayga adaa amarka siiye loogta ikraane anugu dee horta adigaaban ku aqoonsanahay waxaas magligay asteeyeen mid awood ka badano adduunyada dhammaanteed ku afjaraya 2 minid qorahdaada kaan fulin haddii aan la iman laa adaan kugu sameyda oo isaan waanu bixin laa ma fahamtay ayaamaha xorriyadde loo asteeya faraxe dadku ay ilaashtaan ummadaha islaamkana sanadaha u eegtaan ulxiyadiiyo ciidaha waa ayaabal faraxiyo ifafaalo gaare haddii maalin iman layd loo asteeyo ciidaha adaan kugu sameydaa oo ikraam baanu bixin lahaa marka wuxuu leeyahay gabadha marka magaceedun baa la hayay dib ma loo arka gabadhii horta ilaa hadda wiilka qalbigu ku hayaa lamana hayo gabadhiina lama hayo laakiin waxaan rajeynaya inay idaacadda ka dhegaysan doonto malaha maansadaasaa raadinaysa maansadaasaa gabadha soo qaban doonta